السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتدي شناد خيارته يا ardayda qiimaha leh ee ku taxan channelka Cabdiraxiim Saciid waa casharkeena shanaad ee ku saabsan barashada sida loo sameeyo website bilaash ama blogger bilaash afar cashar oo hore aynu ka soo hadalnay qaarkood 10 daqiiqo yihiin qaarkood 9 daqiiqo qaarkood 8 daqiiqo yihiin waynu dhisnay bloggerkeena sidan baynu ka dhignay waxaanu ka dhignay bloggerka qaadka quruxda badan leh ee habaysan qaybihiisa oo dhan dhameystiran yihiin saas ayaan ka dhignay imikana waxaanu baran doonaa sida loo soo geliyo halkaas oo kale imika arrimaha bulshada ku dhufto oo kale waxba isma bedelayaan waxaad aragtaa in waxba isbedeleen kaftan oo kale waxba isbedeleen bal sida boostooyin iyaga loo soo dhexgeliyo sidoo kale waxaanu baran doonaa bal sida searchable looga dhigo sida searchable uu noqdo website-keena oo aynu uga dhigno mid la baari karo bal imika haddaan baaro sanaag berbera ma soo baxayo sanaag berbera haddaan baaro imika ma soo baxayo waayo waxyaalaha kale iska soo baxaya sida search bar hadaba looga dhigaa oo mid la baari karo oo google-ka laga baari karo sida uga dhigaa oo fiican oo meel kasta laga helayo casharkan ay ku baran doonaa ku soo dhawaada ugu horreynta waxaan doonaynaa ka hadalno bal ku hor si wax loo soo geliyaa casharada halka yaala maxay ahayn qaybaha halka yaala sida wax loo soo geliyaa mid kasta oo kamid ah okay ugu horreyn waxaad tagaysaa halkii blogger-kaaga aad ka maamulisay ee blogger ahayd waxaad tagaysaa halkii ku qoran tahay theme waxaad tagaysaa halkii ku qoran tahay haddana ka doonaysaa edit html kadib ayaad dooranaysaa magaca aad rabtid inaad bedeshid magacaan rabo imika inuu shaqeeyo ama aan rabo inuu si fiican ugu shaqeeyo kasoo qaadka ugu horeeya ayaan ku eeginaa wararkan ku eeginaa imika ama barashada computerka ku eeginaa barashada computerka waa halka ka baalaas control plus f ay taabanaysaa barashada enter ay taabanaysaa kadib qaabkan ayuu ku soo baxayaa aragtay html-keena ku dhex jiraa weeye qaabka noocan ay ku soo baxaya leadka ayaad saa u soo raacaysaa hrefalka ay ku qoran tahay waxaad ku aragtaa calaamad yar oo hashtag waad ka tiraysaa kadibna waxaad ku soo qoraysaa oo ku koobiyeynaysaa blogger-kaaga ama website-kaaga ciwaankiisa ama wax lagu gelayo intaas soo qaadanaysaa control plus v ayaad oranaysaa kadib hashtag raacsan ayaad ka jaraysaa waxaad si raacinaysaa search /label/ waxaad raacinaysaa markaa wixii aad rabtay inaad bedeshid barashada computerka waa computerka oo kala go-an waa kaas saas ayaad u raacinaysaa kadibna waxaad oranaysaa save theme haddaynu kuwa kala sii wadno aan kusii tijaabino ka kusii xiga bal aan ku tijaabino isagana ka jar halkaa control plus v hashtag ka soo jar search label ayaad raacinaysaa markaa waxaad taabanaysaa haddana arrimaha bulshada ayaad raacinaysaa kadibna waxaad oranaysaa save theme intuu save garanaya ayaad sugaysaa intaa yar kadibna bal blogger-kaaga in imika waxa isbedelaa aynu eegno refresh dib u dhe waa kaa imika haddana arrimaha bulshada riixo uu shaqeynaya markii horena ma shaqeynin waxba ma soo gelin laakiin imika muxuu soo qorayaa there's no post library arrimaha bulshada ama arrimaha bulshada waxa ma yeelan ay ku leeyahay waxa ma soo galiyaan marka waa inaad imika wax soo gelisaa si wax loo soo gelinaya marka waa inaad ku noqotaa blogger-kaagii waa inaad posts tagtaa kadibna aad new post ka sii doorataa marka aad boostada ciwaankeedu qortaa marka waa inaad hagaajisaa boostadaada waa inaad iska habaysaa si micnaha ay u noqoto searchable ama mid qurux badan aad u noqotaa
ugu horreyn waa inaad sawir soo gelisaa halkaa sawir ka soo qaadataa ayaynu nidhi haddii sawir soo gelin waxay noqonaysaa boostadaadu mid aan qurux lahayn oo aan soo jiidasho lahayn oo cidna ma daranayso inaad wax soo gelisiiyo in kaleba cidna kuma ogaanayso marka waa inaad doonataa imagekii halkaas ayaad kasoo raadinaysaa choose file ayaad oranaysaa kadibna kaad rabtay soo gelinaysaa kaaba soo geli sawirkaa halkaas ayuu cabaar aad sugaysaa in yar marka uu sawirka kuusoo muuqdo noocan kuusoo muuqdo ayaad oranaysaa art selected ayaad oranaysaa intaas markaad samaysid waxaad tegaysaa halka ku qoran tahay labels waa halka ugu muhiimsan aan lahayn lagama tegi karo intii baad qoraysaa arrimaha bulshada okay dhan ayaad oranaysaa arrimaha bulshada saasay qoreed ayaan jecelahay arrimaha bulshada waa kaas kadibna waxaad oranaysaa publish bal imika haddaba aan fiirino arrimaha bulshada wax soo galaya in kale there's no post ayuu leeyahay barbarashada computerka aan ku tijaabino waayo levelka hore ayuu nagu samaysnaa inaga balan dib u qoro sawirkiina dib aan usoo geliyo haddii levelku kuu samaysnaa ood hore u samaystay lagama yaabo inuu kuu soo galo sometimesna wuu kuu soo galayaa laakiin inta badan kuma soo gelayo barashada computerka baan halkaa dhaho computerka hadda wad ujeedaa imika waxaan filayaa si fiican inaad fahmaysid waxba imika kuma jiraan haddaan taabto imika there's no posts ayuu odhanayaa waxba ma dhex yaalaan waa kaas there's no posts with computerka marka publish ayaad oranaysaa kadibna halkan ayaad dib u taabanaysaa refreshtan barashada computerka ayaad ku noqonaysaa si aad u heshid casharka inuu soo galay in kale waa kaa imika uu soo galay showing posts labeled with waa kaa barashada computerka ayuu ku dhex jiraa barashada computerka kaliya ay weeyey markaad home tagtid laakiin casharadii oo dhan wixii way soo baxayaan iyaga halkaasaad ka helaysaa haddaba sidee searchable u noqon karaa oo loo baari karaa website-kaaga ama bloggerkaaga sidee loo baari karaa ugu horreyn waxaad tegaysaa meeshay ku qoran tahay google ayaad soo furanaysaa kadibna waxaad tegaysaa google markaad soo furatid hore ayaan ka search garaynay google waa kaas xagga ugu sarreysa ayaad arkaysaa intaas ayaad ka tiraysaa ilaa iyo soo kasoo xigta waayo waa Soomaaliya intaas oo dhan ayaad tiraysaa waxaad ku qoraysaa add URL kadibna inta ay taabanaysaa waa search garaynaysaa kadib noocan ayuu kugu soo baxayaa wuxuu ku leeyahay URL-ka geli in rabtid aad inuu muuqdo waxaad ku noqonaysaa sanaagtaadii kadibna waxaad soo qaadanaysaa xagga ugu sarreysa ciwaankaaga shabakadaada marka halka ayaad imanaysaa kadibna waxaad oranaysaa past halkan I'm not robot ayaad oranaysaa robot ma ihi halkaa yaraad ka saxaysaa intuu ku xaqiijinayo inaad robot ahay in kale waad sugaysaa markuu ku saxo wuxuu ku yidhi halkan ka dooro inaad streetka calaamadaha streetka ku yaalo dhan waad dooranaysaa inta streetka kaga taalo dhan taa dooro taana dooro kadibna waxaad oranaysaa next haddana wuxuu yidhi street science-ka dib u dooro waa dooro number 10 haddana next street science-ka dib u dooro ayuu haddana yidhi waa dooranaynaa next bal imika inuu xaqiijiyay iyo in kale inuu dib inuu xaqiijiyay in kale ayaynu eeginaa gawaadhi ayuu imika noo diray select all the cars kaas waa gaari kaasna waa gaari kaasna gaari ayaa yaala halkana gaari ayaa yaala halkaa gaari ma yaalo ayaan filayaa halkana gaari ayaa yaala wixii dambe inoo soo baxayn eegno halkana gawaadhi ayaa taala kadibna verify ayaad oranaysaa markaad dhammaysid
wuxuu kuu diro shaqada uu kuu diro markaad dhamaysay Free Fire onaysa ku noqo ayuu hadana nagu yiri halka gaara yeela kala gaara yeela way amaankiisa aad u adkeeyeen robotka ayaa aad u isticmaala bahalkan oo ay uga baqayaan inay robotkaas meel walba waalaya kaasina waa gaari taasina waa gaari gaari kale inama muuqdo imika but I know not verify yes I am not robot waan verify gareeyay kadibna waxaan haysaa submit request ayaa taabanaysaa waad sugaysaa ilaa iyo inta uu kaa xaqiijinayo inuu searchable u noqonayo waa kaas your request has been received and will be processed shortly waa fulinay go-aankaaga ku leeyihiin codsigaaga waanu helnay shortly siro gaaban ama dhow ayaan uga shaqayn doonaa waa Cabdiraxiin Siciid Ducaale iyo channelkiisa oo idinku leh kulanti dambe iyo cashar dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.